السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة يقدرين تمضان أدبان دين سلام يا ملك استضافة عالم كاد كجوكتان سورة صاحبة يال أفر إلى تنكي ساعة يقدم بيجودهان برحب بالشدة وحقاد قلقلي كيسكه ريان بجاج حدبا ريان مدن بيلا مسوا إيدي السنة مركو جهريسي إكسو موقت محكمة دالك كيا قاب نوعيه أيوغ فالعليين dhalinyarada aad ku isticmaasha baraha bulshada qaarkood waxay yiraahdeen rayaan waa dambiile waa gaangistrad waxay la shaqeysaa ragga iyo dumarka iibiya daroogada hadaba rayaan markii muuqaaladaas baraha bulshada ku aragtay qaab noocee ah ay kaga falcelisay xog ku saabsan labadaas muuqaalba waan idin wadaagi doonaa intaas u guda galin haday se tahay booqashadaada igu horeysay waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan واد نولا غريسان واد شيرتان ugu dartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo adigu kale qalbi wanaagsan hadaba markii ugu horeysay ayaa rayaan maxkamadda Kenya ay ka soo muuqatay waliba ayada iyo saaxiibadeeda ku eedeysnaa in fal dambi ah waliba jirdil ah ay u geysteen gabadha Maria Cabdisanaan liiraado ee wadata sharciga dalka Norway hadaba Soomaalida markii arkeen rayaan oo maxkamadda ka soo muuqanaysana qof walbaba siyaabo kala duwan ayuu kaga falceliyay qaar waxay leeyihiin rayaan waa gaangistrad weyn waxay la shaqeysaa rag iyo dumar ka ganacsada daroogada dadka ka falceliya aad ay u badnaayeen runtii bal mid kamid ah aan soo qabto gabdhaha Soomaaliyeed ee aad ku isticmaasha barta TikTok-ga iyo falcelinteedaba muuqaalkeeda aan isla daawano maxkamadda dalka Kenya ayaa mar labaad waxay maxkamadda soo saartay Fahimo Quuche Rayaan Bajaaj iyo gabadhii loo oranayay Hibo oo eedeymaha kala duwan lagu soo eedeeyay markii hore dacwadii hore ee bishii 7aad Fahimo Quuche iyo gabadh Hibo la yiraahdo ayaa maxkamadda la soo saaray halka Rayaan Bajaaj ay warqad xanuun ay ku maqnayd hase ahaatee maxkamaddu mar labaad Rayaan Bajaaj waa ay joogtay sida sawirada iyo warbixinada ee ka muuqda page-ka News Kenyan ayaa wax walba ka helaysa waxa Kenya ka dhaco dhan oo maxkamad khuseeya oo yaani dawlad khuseeya Rayaan Bajaaj marka iyo Fahimo Quuche waxa lagu eedeeyay iyo gabadha kaleba dil inay siyaasiyiin xiriir la leeyihiin oo ay lacag bixiyeen laaluushi wax noocaas 10 kun gaaraysa sidoo kale waxa lagu eedeeyay arrimo la xiriira wadanka wax sharci darro ah inay soo adeegsadeen ama ay soo galiyeen oo lagu qabtay arrimahan waaweynka xaaladdu way xun tahay Kenya waxay noqotay bahalagaleen hase ahaatee dawlad baa ka jirtay wiilashii kufsiga geystay ayaa sidoo kale maxkamad ayagana saan oo kale cadayntooda waxooda loo soo saari doona xaaladda gabdhahaasi ma sahlana baasaboorada iyo sharciyada kulli waa laga qaaday dalka kama bixi karaan xabsi guri baa la geliyaa haddii wax la fahmi waayo maxkamadda marayaan xabsiga loo dhaadhiciyaa kadib baa maxkamadda la soo saaraa daawadayaal ugu dambeyn oon filayaa muuqaalka gabadha ka falcelisay ee kiiska ay ku eedeysan tahay rayaan qaabkii ay uga hadashayba bal rayaan af jooga looma adeegay rayaan ayada hay noo sharaxdo kiiskeeda iyo waxyaabaha lagu haysto iyo falcelinteeda muuqaalkan idin la wadaagayba bal ayadana aan isla daawano dambi ma gashay dambi ma gelin gabadha astagaalna bis كيف كسان وين أركوسين ولا بونبونين دولة وحر على كهانة كشيء ولا ده نو واحد استقالنا كبر كيس كله هو سوا أصل كيس وأنا لقى وضع هذا الدورة إنا واحد كسي حد لما ربوا نهوش إن ماشي كل ما توا أرك الدورنا ما فهمتين واحد حرنا حرنا ما يجي قادي ون دي اللي حرنا مجرتو cool down guys دروجة لقى شيء دروجة كذا بعرك كوسعدانا مقلي maxaa seexoodin darooga ma gado ee business sameeysta dadka idhahay darooga gada shaqeysta anigu waa shaqeystay every day micna hada shaqeyso weysan oo suuq la'aan idin hayso ma aniga waxay leedin rayaan darooga gada jalla saatihiin dad masaarsanaytiin xaaladiina la hadijiyo darooga ma gado diirka ka dagtay familkeyga firkeyga farceyga xitaa darooga ma gadaan okay ilmeena korsanaa lacag xalaal ah ku korsanaa cool down qasqaskan ayaa Allah ka taaganaa dambigiisa ilaahay gees naga maray dhoona inaan iska dhaafna rabnaa markaas waxaan leeyahay darooga gada hooyal ma korsanaysa ayaa caga dhulka la dhiga ha ku balaayo jeclaa naagaha laafka iga soo furnaayna beenta joojina hamnimada joojiyo video rabina soo duub waxa dheeysin intaan la xilin ka hore soo duubtay laakiin hada live ku jiraan
okay newska lagu soo daabac of course newska lagu soo daabac sababtoo ah qofkii aan maxal dhaay dambiga nagu soo eedeeyay oo dambiga naga sheegtay wuxuu diyaar u yahay in media nala keeno media qofkii la arkay iska mageeyay warqada la qoraa warqada markii la qortane waxa la keeskan inaa yani bomboniya rabay just bombonis leewa okay idaacadan lacag ay qaataan marka caada la iska dhigo maxkamadda waxa waaye bishii hore taalahayn waa xanuunsada madaxa xanuunay mina aadin isbitaalana ku jiray wiigana ii soo xigay waa aaday wax jawaabna leeyma soo sii waxaan la dhahay 8 bisha imaada soo marka waa kaasa guys stop lying mid ii soo qorays macna aad xabsiga ay ugu jirtaa walaal case waa gabdhi isdilay english ka si fiican u barta assault case lagu dhahay so case kan kala aqoorta ii gelinaysa inaga dhaafa تذكر إذا عدل العالم كيها العقوة وشيء كان وعلى dhageysta idaacada lacag soo qaadatay waa idaacad loo yartay anuu sheegaa marka caado la iska dhigo qof oo xashiish gado oo nolol sameeyay xaga ku aragtay xashiishka la gadayso waa maxay dadka xashiishka gada ayaga ka wasaq badan la yiri oo nolol duug iyo dacfa ku jiraan qolta case ana waa dad isdilay hadii dambiga lagu qabtana lacag lagu xukumaya lacagta waxay noqotay $1 $300 $400 $500 oo qofkaas lagu raali gelinayo maxkamadan idin heshiisiinayso okay asalta case sidoo kale waxa ku jiro bob camal waxay dhaceen $300 fihimada maxaa laga rabaa fihimo asla joognaa هذا البلهان بوحيدة كان الحرنا يعكن رسالة مقالدين قال بيدي رجيني أنا إلمي قروينا تعمل قاطو عادها لسكا ديقو dadka qolada soo furanayaan dadka oo horta dadka qolka soo furanayna inay English aqoonin meeshaas ku cadeeyeen ribaadiyaalatiin okay wax niila soo dhiibas ka soo qaadateen warkaan buunbuunna loo rabaa buunbuunintii dhaabeen cunay qaar baa idin rajeynay guys big deal sister so big deal أتوي حرم تاكلها حبس إلى تشعلها حبس ولي قال لي ما جينا يجينا فين دي اللي جينا ماشي سبريس كحنا وانا تشيف سنة do you think أنا أوي والله أنت بستور أسيقاتان بركنت إذا دينا ترتيب no problem مركها يقص هذا النبو باي باي نا daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muuqaalkii Rayaan inaad si wacan u daawateen haddaba Rayaan ma dambiila mase waa eedeysane ilaa ay hadda Rayaan Fahimo iyo Hibaba waa eedeysane maxkamadana ilaa hadda wax dambi ah kumaysan helin maxkamadda mar kale ayaa la isugu soo noqon doonaa bisha inagu soo food leh ee October xilligaas oo kiiska la gabagabeyn doono haddii eedeysane Rayaan Bajaaj iyo Fahimo iyo Hibo dambi lagu helana hadda maxkamadda ayaa xukumi doonto haddii dambi lagu waayane mar kale ay xornimadooda dib u heli doonaan hadda banaanka waxay ku joogaan cash bill ah 10,000 oo Kenya shilling ah aanan gaarin wax $100 ala qof ilaa ay hadda waa eedeysane haddaba adigu maxay kula tahay maxaad ku macnay lahayd kiiska ee eedeysane u tahay Rayaan ma dambiila mase ilaa ay hadda waxaad aaminsan tahay inay tahay eedeysane qaybta commentiga ayaa ra'yigaaga ka dhanka ah labada muuqaalba noogu reebi kartaa waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddaysa tahay booqashadaada ugu horeysay mar kale iyo marxiga waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan idin ka codsanaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan maxaa noogu qurxin kartaan laagta qof walba muuqaalka daawanaya laagta iyo sharti soo keendara si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo badan muuqaalkan mid lamid inta kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya nabad Soomaaliya nabad